su-aashu waxay tahay hooyo keligeed ilmo ma xanaaneyn kartaa hooyo keligeed in mise bilood ama in mise sannadood ayay ilaalin kartaa ciyaalka waxaan gacanta ku haynaa ama maalin kasta u jeednaa bulsho dhan oo hooyooyin keliya ay wax korinayaan aabbayaasha ilmaha dhalina aan la aqoon meel ay jaaniya cirib dhigeen muuqaalkan waa cunug yar oo Soomaaliya oo 6 sano jir ah waa cunug yar oo aabihii deyriyay aabihii markuu deyriyay kadib hooyo keliya ayaa ku soo hartay hooyo waa nafley waa maskiin waxay u baahan tahay caawin Soomaalidu waxay yiraahdaan far kaliya fool ma dhaqdo hooyo kaligeed waxa ma xanaaneyn karto ma hayn karto hooyo kaligeed waxay u baahan tahay aabbo wax la haya hadda bisaan aabbe yaa loo baahan yahay maxaa yeelay hooyo markay daasho waxa la rabaa booskeeda qof gal oo aabba la rabaa soo marka ilmaha yarka Soomaaliga 6 sano jirka ah hooyadan baa dhashay aabihiina meel jira lama yaqaan hooyadiina waa bilo aadan oo iyadana maaragtay doorkeeda gashay maxaa yeelay waxaan u jeednaa hadda cunugii kaligiis oo iska lugeynaya jidka bartankiisa waxa laga yaabaa inaad hadaan waa laga yaabaa inuu autism qabo Soomaalida autism cudur la ilaahay ku riday oo xanuunsan yahay laakiin sida runta ma ahane ilmaha waxay u baahan yihiin waalid wuxuu sheego laamiga lama gooyo bara hadaan cunuga la barin qofka bil aadanka hadaan wax loo sheegin waa sida ugaarto kale waa sida ugaarta oo kala weeyaan waa kana cunug fiiri oka jidka bartankiisa iska lugeynaya tan marka waa waxyaabo aad u yar waxa la dhahaa micro wax aad u yar way caleentaas inta kala egtahay baadiyahan hadda daasheeda ka muuqata caleenta kala egtahay wax kala eego ay kaamirooyinka soo qabteen oo arkayna way waxa jira arrimo tiro badan oo daaha gadaashiisa ka socda arrimo tiro badan oo la socon oo bulshadii dhexdeeda ka socota oo dhibaatooyin ah oo ciyaal la waayay ah kuwa dhintay ah kuwa maaragtay waalidka dayacay dad islaameed ka haysteen ah soo marka waa dambi badan baa bulshada Soomaaliyeed galaysaa hase yeeshee dambiga ugu badan waa kaska lugeynaya magaalada bartankeeda hal gaari kaamiradiisa soo qabatay marka dambiga ugu badan koow waxa galay dambiga fidna waxa Soomaalida waxay tiraahdaa fidna cindi geel dambiga koobaad waxa iska leh aabba ayaa iska leh number 2 asaga dambiga iska leh maxaa yeelay meel ka soo joogtid ma arkaysid aabba iyo hooyo wada socdo ilmahoodii wata arkamaysid lagama yaabo inaad aragtid waxaad arkaysaa hooyo iyo ilmo wada socdo wada arkaysaa laakiin odagii baa wuxuu ka baxay Afrikada bidix odagii waxaad moodaa hadda iida lagu jiraa Soomaa dhalinyaro badan arkay isku soo wareeyay kuwa ilmahooda isku soo wareey kuwa hal nin oo isku soo wareey naagtiisa ilmihiisa maarag naagihii baa laga dhuumanaya warwaye maxaa loo guursanaya hadii laga dhuumanayo oo sawirka loo ogoleyn maxaa loo guursanaya markii hore hal iska daayo naagihii baa laga dhuumanaya ilmihii kaliya ahaa la isku soo wareeyaa la soo dhigayaa maxaa yeelay naagtii ninku naagiya nin isqabaacol ma heshiisna ma meedeen Soomaalida ayadoo banaysanaysa xumaanteeda marka aabaha iska la qaladka ilmahaasna markuu isku soo wiro sidoo hooyadoodba uga tagay markuu isku soo wareeyay ayadana meesha uga tagay markuu isku soo wiro ilmihii hooyadooda isla dabagadoomayay hadii ilmana hooyo kaliya ma korin karto marka kadib markii aabihii meesha ka baxo hooyooyinkan waxay noqdeen maanta hooyooyinka jooga intooda badan hooyooyin balwad leh qashin cunaya darooga cabaya shiishad waxaynaya balaayo waxaynaya aroosada aadaya raba inay maartay single iska ahaadaan sida single-kii oo kale raba inay u dhaqmaan waagay single-ka ayaan oo kale si u dhaqmi jireen raba inay u dhaqmaan ilmihii marka waxay sameeyeen qaar guriga ku soo xira iyo qaar jidka uga taga iyo qaar inta seexiye ka taga iyo qaar dad uga taga waa kuwan jidka iska lugeynaya cunugan jidka si u lugeynaya ugu lugeynayay ugu dambeyntiina jidka dadka qabtay ma baabuurta dili waayeen kadibna wuxuu ku lugeeyay biyi isaga dhulugay biyi ku dhaxlugo juluq waa ku dhac waa dhintay ilaa aba badbaadinaya male aba dabaal baraya male hooyo male waxba male soo marka arrinkan waa arrin bulshada haysata maalin kasta iyo meel kasta bulshada kuwii horena way haysatay kuwa hadda cusub horeeraha dhisanayna way haysataa waa arrin ilaa hadda Soomaalida aysan wax xal u helin mar kastana soo noqnoqdo weeyaan soo marka yaa war ilmaha la ilaaliyo wax kale ilmalihi ilmaha aan ilaalino Soomaaliyeey ilmaha aan ilaalino ilmaha si wanaagsan aan u korino
ilmaha la ilaaliyo khaasatan aabbayaasha iska wareegaya aniga hooyo maba eedayn karaba intaan arkaya aabbayaasha iska wareegaya wallahi hooyo ma eedayn karo haddii videoga soo gaaray please aan wada caawino ciyaalka youtube channelkaygana subscribe saar oo anigoo masaar carruureedahoo idin leh maalin wanaagsan